السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامة هذا نوع سبتان وصبر هذا هرجوك ما تلجوا كذا. وحاسو قاعدنا مسلسل كابون قيبتيسي لبعض وحيالي لقى برتي طبعا وحيالها مهم كها وأنا سلايا هاي يكهبوين هنا سوق بي. waxaan dhex geli doonaa qaybtii labaad hadda الأسبوع هذا lasoo dhigay khamiistii qaybtii saddexaadna taxaniis goosgooskiisana waa lasoo dhigay laakiin marka horeeto waxaan eegi doonaa qaybtii horeeto waxa ay laga bartay bal ila kow qaybtii koowaad qaybtii labaad bilaa wixii laga bartaa sida aragna marka horeeto waan fiicnay saaxiibow maxaa kaa cusubna waan maqleen iyo guriga inaad ka tagtay ها والله إنه حليان كدب أمريكا عن قانون يستاهلها. nolol kelnimo hadda ku bilaabatay ما وش اسمع أقول عصب صحي وهي إنه دان كل حجر وقتها يعني. يوم حربي إنام كوش محاير إنه خوف السوعي خوف كسنا وبدنا يعني هبون تاع. runtaa miyaana habboon ma heshay sidee ku heshay laakiin السيب درنا ما رحتي تلافك قدامي إلا حتى إنه نمبرك اللي يسوي عمرك نقول عليه ود السنة. waa farxad runtii saaxiib mar haddii ku soo wacday anaa kuu ballan qaadayo mar kale way ku soo wacaysaa صاحب هبون ونرشيد. أنا ولا نقولين هبون ماشي جوكتي إيه حالة ديدنا نرشيد إيه معانا. waan ubaa habboon way nabad qabtaa waxayna kula jeclaan lahayd adigana qanacsanaato ee saaxiibow goormeen kulmaynaana وكل ما أنا صاحب ما كان سيف عن معركتي ميلو دقو أصلكته إن شاء الله. habboon waan helaynaa saaxiibow magaaladana ma aragtay sidii ay igu shidan tahay هذا ما سنت صاحب سوير. saaxiibkan subeer wuxuu qarinayaa sida aad arkaysaanbo qaybtii horeeto wuxuu qarinayaa bal hadda aan la aragto talo habeen wanaagsan waatan aboontii oo saaxiibkiisa raadinayay oo kulahay waa heli doontaa saaxiib idaa markale kusoo bixeyso dabcan laba kala bara kala war lahaa la yiri ninkoodii gurigiisa u joogtaa baas زبير يا لهدليس waa yar maxamuud la dhaho asxaabteedu ka mid yahay shaqo wadaagna waana اوكي qofku soo wacay ma jiro ama adiga aad la hadashay ماي waxa uu weydiiyey qof kusoo wacmeeyo dabcan saaxiibkiisa aa u sheegay iyada wacday laakiin asina uu ka qariyay iyadana way ka qarisay لكن ما laga yaabaa جمال inuu khalad ii fahmo gabdhihiina horta annaga waa naga berjilicsan tihiin waxaa laga yaabaa qofka sidan aad uga fikrayso habeenkii markuu seexanayo in si qurux badan ugu jiifto subaxii markuu soo kacayna quraac beera intuu cuno shaqadiisa farxad inuu ku aado طبعا saaxiibkan murugayar oo geliyey jamaal ma laga yaabaayo u tiray inuu yani qaladii fahmo asigana saaxiibkiisu ahaa dabcan ma fahmi kari qaabkan sababta u hadlaa xalaqadaasi muhiimadeedu waxay ahayd habboon in ay guriga saaxiibkiisa ay joogto asigana uu ka qarinayo muhiimadda intaasoo qaybtan uu saabsan yahay laakiin qeybaha kale aan usoo bixi doonaa oo ay soo dhigeen xalaqada saddexaad ay soo dhigtay maanta ay soo dhigeen bal ayagana aan eegno waxa ay laga bartay iyo xalaqadaasi waxay gundhig u tahay qaybta saddexaad ee caawda la soo dii doono walaal macana horta wiilkayga Jamaal waa ku caabeysana haddaad jeceshahay habboona u dhaafi lahayd inuu jeclaado جمال حفيزك عقبت قتها عشان محاومة بحول شيء قالب كينا خاطون صور قابل saaxiib cusub ayaan nagu soo biiray waa xirsi barasho wanaagsan سأسكك فرسنا محان ألعب ميل تالا معه مسلسلka habboon qayb habboon waxay imaaday guriga jamaal waxayna ka qaadatay sawir
sawirkaasi dabcan qofku uu yahayna naguma tusin laakiin guriga ayay imaaday dabcan doorkan waxay moodaa qayb saddexaad inay si waadax ay kusoo muuqan doonto aysan ka baqi jirin wax ay ka baqan aysan jiri doonin inkastoo ay dhudhuumanayso laakiin waan filayaa in Jamaal loo sheegi doono in guriga Habboon imaaday ee sawir qaadatay dabcan taasna waxay ku reebi doontaa dhacdo xanuun badan ay noqon doontaa filimkan Habboon dad badan door fiican ku leh Jamaal walaalkiisa maqaayada door wanaagsan ku leeyahay hooyada aabaha dacna guud ahaan filimkan doorkiisa qof walba doorka ku soo muuqanayo qof walba linkiisa ay ka roo sheegaa waxaan isleeyahay waa مسلسلka Soomaalida ay sameeyeen kii ugu fiicnaa isleeyahay intaan arkay oo waayahan qaabka loo sameeyay waana musalsal runtii ka sheekeynayo qof la soo korsaday familkiisa soo korsaday inay wax bareen haddana maamadii soo korisay qayb ka tahay inay wiilkiisa u fogeyso ku darayso wiilka leeto marka hadda qaybtaani waxaa loo daawanaa waxay tahay Habboon halkay ku dambeey doontaa miyay isla doonaan Jamaal Yaasiin miyay isku soo doonaan Habboon filmkeeda yaa waaye waxyaalahaas dhan waxay ka turjumayaan filimka wax xiisaha u yeelayo oo la sugayo oo qof walba ka dhowr sugayo waay laakiin guud ahaan waxaa moodaa filimka inuu yahay musalsalka inuu yahay mid taxana noqon doono qayb labaad haduu leeyahay qayb saddexaad inuu yeelo doono wajigiisa sheekada daamaqay tafaano la fara kama qodno waa tan oo kale tafaano la fara kama qodno waa hoosh ma dhow ka dhigan tahay faad marka waa ku maasantiin haddii intaan la soo socotay ku maasantaa haddii intaan la joogtay waxaan ka codsanayaa inaad asxaabtada gaarsiisid haddii aad aragtay like iyo share kana dhaafinin nasrid